السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أخيار تشرفت يا ماموس كمدن وين السلاني وقت وناكسن ينولد في عنا وين رجينا يكسر دوادا كنال كان عافيماتك يا دريال كعافيماتك وينو مانتك كهل دونو عافيماتك تيمها يقاب كادو دريال سياديغو غوريغا جوغا عافيماتك تيموه waa shay aad u muhiim ah ilaalintooda daryeelkoodu iyo in markaa runtii fiiro gaar ah lagu hayo. Timuhu waxay ka mid yihiin quruxda qofka ibn aadanka Ilaahay siiyay guud ahaanba dadka gaar ahaan haweenka way ka mid yihiin quruxdooda iyo faayahooda iyo meelaha lagu qiimeeyay qayb lixaad la ka qaataan. سالاتيجي ilaalinta daryeelkoodu waa muhiim mararka qaar ba qofka waxa dhaca inay dayaclaan ay uga daataan ama marka shaambooga uu isticmaalaya ay uga daataan ama caafimaad darro ay uga daadaan intaasuba way dhacdaa. waxa jira xanuun loo yaqaan dandruff ayaa inta badan jira oo qayb lixaad la ka qaata timaha daadashadooda. qofka dhinaca immunity-ga kama hadlayno difaaca jirka qofka qayb bay ka qaataa timuhu inay ka daataan difaaciisa iyo xaaladiisa caafimaad. si kastaba ha noqotee waxaynu ka hadlaynaa dusha sare ee tintu ayaa qudheedu waxay u baahan tahay nafaqayn iyo markaa in la daryeelo. qaabka ugu fiican ee aad u daryeeli karto adigoo gurigaaga jooga oo aan markaas qaabka gurigaaga aad ugu daryeeli kartaa waa 3 dariiqo. marka koobaad timaha inaad ku ilaaliso ka ilaaliso xanuunka toxobta oo shaambooga loo yaqaan anti dandruffka iyo shaamboo inaad isticmaasho oo toxobta aad kala dagaalanto waa qodob. qodobka labaad timaha inaanad ku feedhin kafeed soo jaraysa oo gudda soo goynayso cidiyaheedu ay aad u yaryar yihiin. taasuna waa qodobka labaad. qodobkan saddexaad waa qaabka yaga aad u isticmaalayso ee runtii aad ku daweynayso tintii ay ku noolaanayso. waxa soo qaadanaysaa ugxan beed ka doorada ama digaagadda waa tumaysaa intaad jabiso kadib waad marinaysaa way madoobaanayaan tintuna way adkaanaysaa waanu quruxaysanayaan oo tignas bay noqonayaan oo way qaraysanayaan qaradooda iyo tayadoodu way saarnaanayaan. dibta uu leeyahay waxa weeyaan siifad waxa laga yaabaa haddii haweeneydu xaas tahay inay markaa karaahi iyo waxyaabo noocaas ay ka baqayso xilliga maalintii waxa ku filan waqti aad u kooban. xilliga maalintii saacad ama 2 saacadood uu ku saarnaado ayaa anaf ku ah. inaad habeenkii ku seexato muhiim maaha. taasi waa qodob. haddii aad ka dhibsanayso ama markaas aanad heli karayna waxaad isticmaali doontaa avocado inta isagana sidoo kale aad shiito ama aad qasto ayaa sida caadiga ah creamka loo mariyo aad u marin doonta. kaasuna inay dintii ku madoobaato nafaqo ku galiyo ay ku dheeraadaan ay ku baxaan ayay labadaasba ka faa'iido yihiin. haddii aad leedahay intan midna ma heli karana qasilka ama caleenta geedka gobka ayaad isticmaali doontaa haddii Ilaahay ka dhigo. inta soo gurata caleenta oo aad tunto oo waa sidii shaamboo oo kale ku noqonayaa waad ku meedhaysaa waana ku radin kartaa waqti. haddaad basal iyo toon raacsato markaad beedka ama qumbaha ama qasilka isticmaalayso waa iska inay ku hagaajiso maahaane waxba ka xumayn mayso. wax dabeeci ah runtii dal agtaada yaalay taasaynu kaga tagaynaa. fadlan si wadaago si share gareeya bulshadeena kale. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.